فيري صغير هلاقة بيبي صغير هلاقة فقم محمد والكعي وحنا ودب ديسانيا إنه دجالك مركزي فقم محمد يو مريحان ودحية إنه كقريب قالوا قاعد سنبا قرمانيسا waxaa gurmanaya Qubays waxaa gurmanaya niman kale oo la yiraahdo Salebaan Cabdalle oo markaasi surre ka tirsan xaaladuna waxay markaasi noqon kartaa mid haatan halkaasi waxa ka jira bedeli karaysa oo waji kale ayuu yeelan karaya dagaalkaasi sida wararka aan ku helayno Mareexaan waxa uu soo gurmaday niman la yiraahdo dhulbahanta iyo sidoo kale Leylkase oo saraakiishoodii ayaa waxa weey dagaalka waxyeelo ka soo gaartay beebayaashii saqiir halaage ee fiqo Maxamed ay lahaayeen waa laga kiciyay maanta xiraale jiido hore ayaa la geeyay maxaabiis ayaa lagu qabtay dagaal lagu halaagsamay laguna dhamaaday una dhaxeeya beelaha fiqo Maxamed iyo sidoo kale beesha Mareexaan ee sade ilaa iyo haatan ka socda waqooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhulal ayaa la kala qabsaday haddaba warbixinada ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa iyo sidoo kale hubab la kala qabsaday haddaba muuqaalkan marka hore la igare sina share gare oo saaxiibadaada la wadaag deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka Galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen beelaha fiqo Maxamed iyo sidoo kale beesha Mareexaan ayaa maanta waxa lagu kala qabtay maxaabiis waxaana wararku ay markaasi sheegayaan in dhinacyadu ku dagaalamayay ay maxaabiis kala qabsadeen waxa intaasi dheer in beebayaashii saqiir halaage dhombireed iyo sidoo kale shilkihii qaawanahay ee ay lahaayeen fiqo Maxamed gabi ahaanba maanta waxa weey xiraal ay ka baxeen fiqo Maxamed kii digrin jiray iyagoo xadreynaya oo koox u socda ayay jiidii tarab u galayaan iyagoo sheegaya inay markaasi ka gardaran yihiin ama markaasi ay gardarada leeyihiinba nimanka markaasi ka soo jeeda dhinaca kale ee Mareexaan lagu magacaabo waxa Mareexaan ay ku handacoonayaan iyagoo ruuxadooda iyagoo wata shaamashuutaradii ay dhaceen ama ay balaqaysteen inay fiqo Maxamed ay iyagu markaasi saaka dagaal ku soo qaadeen xaaladda deegaanadaasi waa ay qasan tahay wali ilaa iyo hadda odayaal dhaqan iyo sidoo kale dawlad ama markaasi mas'uuliyiin ku baxda ma jirto dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaase la arkayaa beebayaal iyo shilkayaal ordaya oo ciidamo ay saaran yihiin ilaahay kala qaboojiye ayaanu leenahay balse xaaladda waa halis dhaawacyadii ayaa waxa la kala geynayaa magaalooyinka Cadaado iyo Caabudwaaq waxaana markaasi meydadkii halkaasi waxyeeladu ka soo gaartay lagu kala duugayaa magaalooyinka Xeraale iyo sidoo kale Caabudwaaq dagaalkan oo markaasi sida la sheegay socda muddo qarni ku dhow ayaa waxa markaasi la isku hayaa laguna handacoonaya isla markaana ay ku hirtamayaan oo wiil Soomaaliyeed u go'aya dhul ama lahaanshiyaha dhul ku yaala deegaanadaasi deegaanka Tawfiiq oo ay nimanka fiqo Maxamed oo culimada ay degan yihiin ayaa meel u dhow waxa saaka soo weeraray maleeshiyad markaasi ka tirsan beesha Mareexaan ama sade waxaana wararka aan helay inoo sheegeen isla markaana xiriir aan la sameeynay inoo sheegeen dhinacaasi dagaalkii ka socday maanta ee qolayihii kale ee Mareexaan weerarka soo qaaday inay iska caabin xoog leh ay la kulmeen isla markaana laga riixay goobtii ay weerarka markaasi ay ku soo ekeeyeen saakadii hore nin lagu magacaabo ilka case oo markaasi u dhashay fiqo Maxamed ayaa miidiyaha markaasi shir jira id ka qabtay sheegayna in dagaalkii halkaas lagu soo qaaday ay xogaa uga gacan roonaadeen dhinacii kale ee markaasi maleeshiyaadkii Mareexaan ee weerarka soo qaaday xaaladda deegaanadaasi waxay markaasi noqonaysaa mid maalinta ka dambeeyda cirka isku sareeraysa waxa la gadanayaa hubab kala duwan waxa la soo iibsanayaa rasaas kala duwan waxa dhacaya ee la isku adeegsanayana waxa ugu yar waa qoriga loo yaqaano AK-47 ee sida darandooriga u dhaca waxaana markaasi halkaasi si torab leh u yaala dhaawacyo iyo sidoo kale rag markaasi naftu ay ka baxday ilaahay kala qaboojiye ayaanu leenahay waxaana saacadda ka dambaysa fiqo Maxamed iyo sidoo kale nimanka la yiraahdo Mareexaan u imaanaya gurmadyo kala duwan oo magaalooyin markaasi ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Mudugba waxa weey ka imaanaya gaadsan baa gurmanaysa waxa gurmanaya Qubays waxa gurmanaya niman kale la yiraahdo Salebaan Cabdalle oo markaasi surre ka tirsan xaaladuna waxay markaasi noqon kartaa mid haatan halkaasi waxa ka jira bedeli karaysa oo waji kale ayuu yeelan karaya dagaalkaasi sida wararka aan ku helayno Mareexaan waxa uu soo gurmaday niman la yiraahdo dhulbahanta iyo sidoo kale Leylkase oo saraakiishoodii ayaa waxa weey dagaalka waxyeelo ka soo gaartay oo nin markaas u dhashay Leylkase beesha Leylkase la yiraahdo darbi daano sida u taqaano ayaaba jiid hore ee dagaalka ku geeriyooday ilaahay kala qaboojiye ayaanu leenahay balse dagaalkaasi waxa uu noqon karayaa hadduu sii socdo mid waxa weeye waxyaabo badan lagu halaago